waxaan idinku yeedhay waxaan daba joogaa hadal maalin weyd shir jaraa'id uu qabtay Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID hadallo badan oo buu ku hadlay sixitaan buu sameeyey markii dambena sixitaankiina wuxuu ka sii xumaa kii hore waxa ka xumaa sixitaankii dambe marka ugu horeeya waxaan u mahadnaqayaa suldaanka guud beelaha Somaliland iyo shacabka Somaliland wixii hadalladii ku hadlay Faysal Cali Waraabe aad uga dhiidiyey ka dareen celiyeyna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xaalkiina waa ka guddoomay suldaanka guud wixii beeshii la aflakaadeeyey waa ka guddoomay laakiin hadalka Faysal maaha qof caadi suuqa jooga waxa weeye waa guddoomiye xisbi oo xisbi qaranku leeyahay ayuu jooga marka hadalladu ku hadlayna hadallo loo dul qaadan karo ma yahay hadallo anshaxa ka baxsan buu ahaa hadallo gef buu ahaa aniga shakhsiyan wuxuu iga sheegayo waxba kama qabin aniga waxa weeye kursi baan fadhiyaa siyaasad ninkii kalaana dee in la maago xaq buu leeyahay inuu ka caroodana ma aha saxaafadana kuma badniyo waxaan jeclahay waxa weeye aniga lay maagi maayo waxa la maagayaa kursiga aan ku fadhiyo sidaa ay tahay haddana waxaan ku fadhiyaa kursi xisaanad leh waxaan ay qaranka ninka saddexaad baana umana dul qaadan karo hadallada qaarkood wax loo dul qaadan karo ma aha waxa weeye qodobka ugu horeeya uu ka hadlay waxaa ka mid a isku dirka beelaha Somaliland Faysal waa ku ogaa inuu necab yahay hartiga iyo daaroodka inuu necab yahay nacayb kalena ma aha wixii uu xamar ka sameeyey uu ku sameeyey beelaha Somaliland degan ayuu ku qarinayaa in uu dhalinyarada u tuso nin daarood iyo harti necab inuu yahay laakiin ma aha inuu necab yahay waxa weeye waxa qurub magaalada ku soo galay Soomaaliya ku soo noqday waxay ahayd inuu harti iyo daarood haayo taasina ka reebi mayso dadka Somaliland waa qabaa'il waa dad wada degan waa dad walaalaa taasi wuxuu xamar ka sameeyey ka reebi mayso wuxuu yiri ugu weyneed waxa weeye wixii kale markuu wuxuu ka hadlay meesha la yiraaho Puntland waxa isku haysta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka is haysta waa wax iyaga ka dhaxeeya wax isaga ugu jira dhaxkalkiisa ma ay jirin oo ka khuseeya laakiin fidmo buu rabay inuu meesha dhex dhigo hadalkiisana waad maqlayseen wuxuu yiri soo eri sida ilmo yar oo u shaqeeya meel soo eri buu yiri afka toogana madaxana ka gooyay nin dan oo xisbiya inuu yiraahdo qof madaxa ka gooy waxa weeye waa dambi qaran weeye danina uma hiilinayna wuxuu doonayay inuu isku diro labada beelood ee wada degan waxa kaloo ka sii daran oo taa ka sii xun waxa weeye wuxuu yiri Axmed Karaash intuu majeerteen dhulka ku qabsanayo qolulugud iyo coodille ayaa laga haystaa ha xoreey waxa weeye wixii halkaa ka dhaca ku dhinta dagaalka uu horinayo Faysal kaga qolulugud iyo dad mankaaba uu ku kuwaabinayo dalkiina baa la haystaaye xoreeya haddii wax ku dhintaan isagaa mas-uuliyadda qaadaya sababu laba beelood oo Somaliland dhexdooda isku diro dee waa wax la yaab leh dee waxaan u malaynayaa hadduu dee qolulugud iyo coodille waa la wada degaa waa degaan Somaliland cid waliba waa tegtaa sabab maanta uu isugu diro laaya dee waxay la tahay tan ceelaf weyne demi weydana
inuu faysal ku lug leeyahay hadduuba marbaa qoladan isku diray inuu tanna ku lug leeyahay waaba iska suurtooda laakiin waa la baari doonaa. wuxuu kaloo ka hadlay doorashooyinka wuxuu yidhi baashe waxaanu isku haynaa doorashooyinka iyo isxambaar. wuxuuna diidan yahay in dadka sool iyo sanaag la diiwaan geliyo. anigu doorasho mana diidin, doorashona waa rabnaa, wayna dhacaysaa. isxambaarkuna ceeb maaha, waxa weeye markii doorashada golaha wakiiladu dhacaya waad ogeydeen oo puntland baa haysatay laascaanood, meel dowlad kale haysatana doorasho lagama qaban karo. laakiin wuu ogyahay golaha deegaanku in markii puntland laga saaray golaha deegaanka toos loo soo soortay oo deegaanka laascaanood fadhiya doorasho toosay ku yimaadeen. anigiyo faysal doorasho iskuma hayno. anigiyo faysal waxaanu isku haynaa waxaanan anigu shaqo ku lahayn oo golaha oo dhani qabeen oo markii $21,000 ayaa saddexda xusbi mid waliba $21,000 baa la siinayay si xusbiyada loo kobciyo ayaa waxaa la siiyey $21,000. waxaana dhacay waxay ku soo beegantay markii kuududiyuhu dalka haystay. xildhibaanada waxa u muuqatay waxa weeye $21,000 xusbiyada la siiyaa inay ku badan tahay, waayo xusbiyadu waxay leeyihiin subscription bay qaataan, membership bay leeyihiin, lacag baa soo gasha. marka xildhibaanadu waxay garteen in kuududi cusbitaal 6 cusbitaal wax looga gooyo 50% in loo gooyo cusbitaaladan hadda leeyahay ambulance ma haystaan, daawo ma haystaan, in loo gooyo. ta uu igu haystaa waxa weeye waa lacagta. anigoo lacagta dee kama gooyina waxaa ka gooyey golahoo dhan bay u tiiri. waxaa kaloo ku jirta waxa weeye wuxuu magacaabay aniga iyo 2 xildhibaan oo kale oo qura oo beel ka soo wada jeeda ayuu magacaabay. golahuna waa 28. wuxuu leeyahay qabiil lama aqaano waa sheegaya. hadduusan qabiil aqoon maxaa saddexda iyada isku beesha maxaa uu leeyahay doorashadiiba hortaagaya. taasina waxayna tusaysaa waxa weeye qabyaaladu wuu yaqaano dee qabiilhaama saddexdeeda noo soo socdo. 3 ciida galee ku jira muu soo hadal qaadin. marka waxa weeye wax kalean isku haynaa ma jirte, lacagtaasaa la gooyey. haddii ilaahay idmanaa miisaaniyadda soo socotana waa la wada jarayaa. mid qodobka labaad ee ugu xun wuxuu yidhi dadka nala jooga. dadka nala joogaana wuu ujeedaana waa harti. hartina cidna lama joogo. ninkii aanu la joognayo lagu fasax. cid aan la joogno iyo cid aan magan u nahay maayo. dal iyo dad baanu leenahay. waana ogsoon yahay dal iyo dad baanu baxsay. cid aanu marti u nahay ma jirto. wuxuu kaloo sheegayay kuwa gurigiisa ku dhuumanaya. wuxuu yidhi gurigeeyay ku dhuuntaan, annagu ma ogin kuwa guriga ku dhuumanaya, laakiin dee cid baan bal u diri doona, waxaanu ogaan doonaa nimanka hartiya gurigiisa ku dhuumanaya. marka waxaan u sheegaynaa somaliland waxa weeye 40% dalka somaliland annagaa leh. cashuurta iyaday cunaan, annagu cashuuraanu cunnaa ma jirto. waxa weeye cashuurta somaliland waa la wada leeyahay, waa u shaqaynaa. haddii cashuur la cuno faysal wuxuu u qabto 29 sannadood cashuurta dalka ayuu qaadanayay. weliba waxaan hubaa 6 maamul gobole 6 maamul ee soomaaliyana inuu tabaanada laga beero uu cuno, waayo madaxweyne kasta wuu la kulmaa oo soorigu ka soo qaata. deni baa ugu dambeeye markii ugu dambeeye la doortay safarkii dubay u baxay. dubay buu kaga daba tegey oo yidhi waxaan u tegayaa deni baan u tegayaa. axmed madoobe buu tegey, sheekh shariif buu tegey, farmaajo u tegey, xasan sheekh buu tegey. marka isagu tabaanada
islaamaha hargeysa qura ma cunee waxaa ugu darsan anigu qoorqoor baana hubin inuu isaguna dee waa cusub iyo waxaan inay is arki doonaan gooray tahayba xaafna wuu arkay marka haddii tabaandho cashuur laga cunayo isagaa cuno marka waxaan u sheegaynaa waxa weeye annagu somalilan haddii cashuur la qaadayo waa u shaqaynaa shaqadaanu qabanaanuna ku qaadanaa isagu se 29 weligee xafiis ma fadhiisan intaana lacag buu cunayay safar kasta oo baxo xukuumadda ka bixisa marka cashuur haddii la cunayo dee ninka cunaa waa isaga awel wuxuu odhan jiray guri malihi mee malihi hadda de gurina waa leeyahay xafiiskiina waa iibsaday xafiiskiina hadda wuu iibsaday oo dhibaatada hadda taageena ucid waxa weeye markii ay isqabsadeen ciro iyo faysal isku qabsadeen xusbiga wuxuu yidhi ninka igu qabsadaa ucid waa nin igu qabsaday waa nin ninka la yidhaaho mansuur ku qabsaday hudheelka ku qabsaday cabdiqaadir nin hudheelkiisa ku qabsaday bal kiyo haddana gurigiina iibsaday gurigii xafiiska ahaa hadda iibsaday qofka ugu tegayaa waayo waxa weeye faysal waxa weeye annagu oran maayo xisbiga ucid ma jiro wuxuu har iyo habeen ku celiyaa golaha wakiilla ma jiraan golaha guurtiina ma jirto waxa weeye waa qodob dastuuriya dastuur baa golahu ku fadhiyaa isagu wuxuu ku fadhiyaa sharci annagu aanu samaynay sharci annagu aanu qoro ayuu ku sameeya annagu se dastuur baanu ku fadhinaa haddii uu ka waatoobi waayo annagu odhan mayno ucid sharcigaa noo diidaya laakiin ahaan maayo guddoomiye faysal guddoomiye xusbi sidanuu yahay ku ahaan maayo 3 doorasho kale 3diiba waa dhacay waxay markuu doorashadii hore dhacay inuu tii labaad hadduu dhacay risaan gareeyo hadduu dee sharaftiisa magaciisa dhowranayo oo dadka u baneeyo dimuqraadiyadna wuu ka hadlayaa waxayd inuu baneeyo kursiga oo dadka kale jaanis siiyo laakiin ciduu siinaya ma jirto hadda mid afraad buuba laakiin waxaan ballan qaadanaa inuusan mid afraad isu taagin mid afraad inuusan isu taagin waxa weeye markaan aada u fakeray ma doonaya inaan hadlo laakiin markaan dhowr habeen fakeray waxaan goostay waxa weeye faysal 4 jeer 3 jeer Soomaaliya dooro weyn cadaawad buu u qaaday cadaawaduu qaaday baana hadda socota maalintii dhaweeda xisbiyada la yiri waa la furayaana waxaan hubaa dad kula sheekaystay intaan la furin inuu xamar aadayo faysal sidan Soomaaliya laguma wada joogi karo waxa weeye uu kala kaxaynaya waa isku diraya fidnu la taagay maalin waxa iidib hadlayay wuxuu soo qaatay khulafa raashidiintii baad moodaa dhar cad intuu soo qaatay wuxuu yiri yoyotanka la iska daayay maalintii labaadna waxaan ku hadlay marka waxaan idin sheegayaa waxay saxaafadda Faysal Cali Waraabe uma aqoonsanin inuu guddoomiye yahay laakiin xisbu ucid waa jira oo sharcigaanaan diiday wixii dastuur jabin buu ku jiraa dadkii Soomaaliland buu kala sheegay inay kala yihiin dad dal kale iyo dad la jooga isagaa ka jawaabi doona dadka la jooga cidda ay yihiin sidana Soomaaliland lagu wada ahaan maayo ama qabaa'il baynu noqon nin walba qabiilkiisu wax ku qaybsan ama dal Soomaaliland la yiraaho la wada leeyahay oo aanina martin nin kale uga ahayn ayay noqon doontaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa haddaad su-aalay weydiinaysaan aan badnayn ka jarayso lacagihii ay qaadan jireen markii hore idinkoo kala bar ka jaray xisbiyada siyaasadda
حزبية السياسة فيصلوا ولا باها وحنا كوا أساسين حنان دستورية ما لقي هذا إنت ديمقراطية دلتي ده أو لقوك كمي إنت علىها لقصية إن هذيك اللفتي نقول كل دي سنة ما يا كل دي ما إنه waxaa lagu siinayaa qolo waliba percentage baa lagu siinaya halkaas aad aragtaan nin waliba intuu wax ku qaato ayuu adduunka oo dhan baa saa u kala qaata waxa weeye ninkii dee 4 qof haysta dukaan yaroo macdaara iyo kira lagama wada qaado cashuurna lagama wada qaado marka wax ku filan oo dekirada ka bixiso baa la siinaya waagii hore daahir yaala 1200 buu siin jiray اوكي كنت انا حصلت ليش كذا عاصمه يعني وخلاص يعني هذا واحد شيء انا قبشاني خارجينتي لقيت هذا الكيس عندنا لا عروس خالص شيء يعني كهبونا بين خارجينتي وقالتنا اسكا ما waxaan u aamusay waxa weeye raaligelinta Suudaanku wuxuu siiyay beeshi laakiin Faysal ma aha waa nin siyaasi Suudaanka waa u mahadnaqnaa laakiin waxa weeye waa ninkan xafiis buu fadhiyaa qaran ayuu fadhiyaa lagagabana aamusi karo damage-ki dhacay wada hadii qorili baashi coodin iyo qorlugud hadii imika iska xoreeya oo dagaal ka dhaco yaa qaadaya mas'uuliyad hadii bari ay dadka la guubaabiyay awal bacabanay hadii la yaa dalkii baa la idinka qaaday dhacsada yaa qaadaya mas'uuliyadeeda waxaa jiray Faysal ma sii ahaanay gudoomiye xisbigu ka tirsanyahay dastuurkaa sheegaya xisbigiisaa doortay sidee baa dastuur ma sheegayo xeer baa sheegaya xeerkii iyo dastuurku waa kala shaad marka xeerarkii baanu dib ugu noqonana waayo intaasoo dambe hadduu galay waxa weeye maxkamadna waa u gudbinaynaa wixii la marsiiyana waa marsiinaa laakiin gudoomiyada ma aanu aqoonsanahay ma jiro xisbiyada macaalimku weli xubnahooda kuma shaqeyn lama ansixin hore way u keeneen oo waa la ansixin waay mar labaad hadda waa la soo celinaya dadka qaar baa waxay qabaan in baarlamaanka daranka ah intuu la ficiltamo Faysal dib loo celin doono iyadoo gacanta ay ku jirto xildhibaanada haddana damaanad ma u qaadaysaa in xildhibaanadaas xubnahaas la sii deyn doono waxa weeye anigu ma qaadi karo maya axmed waxa weeye xildhibaanada waxa weeye xaq bay u leeyihiin waajibaadkooda ay gudanayaan Faysal la wuxuu ciduu keenay ku xidhan tahay Faysal iyo iskuma xidhnaa iyo qof waxa weeye ballanna lama qaadayo mana qaadi karo waxa weeye marka la keeno haddii la keeno waajibaadka dastuuriga ayaa goluhu ka gudanaya hadday ku qancana waa asixinaya hadday ku qancina waa celinaya Faysal marka leedahay ma aqoonsan gudoomiye xisbi tabaashahan baa soo golaha wakiiladu ma aqoonsan waa sharci waa laga hadlayaa waxa weeye golaha wakiiladu maadaama uu yiri golaha wakiilada ma aqoonsanin oo sharci maaha waxa weeye anigoo ku hadlay afkoodii waxa weeye annaguna hadduusan golaha aqoonsanayn golahani waa golo dastuuriya waa dastuur jabin ninka yidhaha golaha ma aqoonsanin ninka yidhaha waa muddo dhaafeen waqti badan bay fadhiyeen waxa weeye waa gooni laakiin ninka yidhaaha gole labada gole ma aqoonsanin maaha isagana lama aqoonsanayo waana isaga wuxuu ku fadhiyaa wuxuu ku yahay gudoomiye xeer aan anagu samaynay laakiin